السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان aqyaat youtube aan salaamay casharkan wuxuu ku saabsan yahay khaladaadka inta badan marka programka furisid ee ka dhaco window 7ka ama windowyada kale ku aragtid 8ka ama 10ka kaasoo windowga wuxuu ku leeyahay cannot access a specified device inuu ku dhaho kaas ku soo saara ciladaas marka sida ku saar leed window 10ka ama window 7ka sida ku saar leed sida ugu saarnay cilada computer kale ayaan ka rabnaa ka saarno TeamViewer ayaan isticmaalayna marka programka rabnaa inaan furno oo jeeda window loader way uu diidan yahay kadib waxaad leedahay antivirus ayaad furaysaa waxa laga baahan yahay meesha security-ka waa inaad dhammaan off ka dhigtaa security-ka waa inaad ka xirtaa antivirus-ka noocaad isticmaalaysid sababtoo programka isticmaalaysid waa program aragtid in aad ku heshid si programada kale aad lacag la'aan ugu dhigatid kaasoo magaciisa guud ahaan aan ka sheegin meeshan kaasoo ku ogolaanaya inaad programka free ahaan u isticmaashid antivirus-kana marka waa ka soo horjeedaa markaad programkii mar labaad dib u soo furo double click aan siiyo isla markii waxaad dareemaysaa programkii si toos ayuu u furmay oo jeeda awalna ma soo furmayn laakiin marka aad double click siisid wuxuu ku leeyahay sidan kuu sheegaba windowgan ma ku ogolaanayo saadata marka programka sidaas hadii inoogu furayahay waana fududahay in access-ka ciladaas ka saartid marka ciladana inta badanna waa sidan window cannot access badanana dadku waxay leeyihiin programka ciladaysan marka ciladaysan waxa cilada ka jirta antivirus-kii barnaamijka wadid ayaad cilad jirta sababtoo waxaad isticmaalaysaa wax awratid inaad talaabo qaldan ku dhaqaaqdid marka insha Allah bidna kani wax kasta muhiimada waxay tahay inaad baratid inaad ka faa'iidaysatid aqoontan muhiimada waxay tahay walaalka u faa'iiday adana ka faa'iidayso assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran